haddii la aasaasi lahaa qoysas badan oo aslaax ku dhisan bulshadu ma bahalowdeen dad wada jecel oo wanaagsan bay noqon lahayn laakiin aasaaskii baa naga lumay Allah noo soo celiyo dhalinyaro guursada waliba ninka yaraanta ku guursada waxa la yiraahdaa waa walaalka dhale ninka asagoo weyn guursado da'da fiicneed ku guursada waxa la yiraahdaa wiilka dhale oo isu ogyihiin wiil iyo aabi ninka asagoo weyn guursada hadda waa midaan ka yaabno wadka dhalaa la dhahaa عشان قفك أنتوا يجي في الفرعون إنه جورسده وحبضن بأطريسا مركب جورسده هذا الله مركب الإسكورسني هذا الشيء كأيو سبرشة كهري ويلش بالعن كهر مرة ما دام أيوة مسؤول كرير كيين قبله أسكر مساكين قبله يمكن أتجورسني سام مركب راش شيء كأسلا ودان أنا أقول مركب في ريس دحنا عبان وقيبي قيبتك بعض الضيع يمد أهل يراده ضيعه iyo daaliye iyo daryeele ninka dayace la dhaho waa markay maanta u badan yihiin dhalinyaradu intay gabdhaha been u sheegaan oo sheeko beena iyo jacayl beena ku abuuraan oo haniyay waan ku jeclaa haba casho meel ka sii haba ka jagsi uu maalinka dambe hawlihiisa ka gaaran xagga uga dhaqaaqa dayace waxa lagu gartaa reerkiina ay bar ku dhimayo hooyada ay bar ku dhimayo walaalka ay bar ku dhimayo aabaha ay dhar ku dhimayo hatta waxa laga yaabaa gurigiina inuu darqa ku barto oo soo haba meelahaas luuqaas ku iyo library carrada kugu la balamayo hadhow markuu hawlihiisa ka gutar meel u raacday aad weydo waxa laga yaabaa hatta magac beena ku sheegto oo waag dambe sheekada xumaato magaciiba lama yiraahdo adoo Cabdirasaaq raadinay ama Cali Faarax raadinay waxa uu leeyahay Maxamed Baaldiji dayacni kala yiraahdo astaamaad ku garanaysa waxa kamid ah hatta gurigiina hadoo ku gula balamo inuu guriga ka qaado hoos bunteesta ku leeyahay hooyan ka baqayaay soo deg hoos baan taagana taleefayr ama taxi intuu ku soo diro dayaca waa kuwa gabdhaheena maanta duleeyay waa kuwa gabdhaheena maanta intay gabarnimadii ka baabeen cilada uga tagay waa kuwa jacayl been intay u dhiseen gabdho badan ay ku halaagsameen marka gabdho waxaan leeyahay hanida beenta yaa leen ku halaagin waagii hore oo wadankeena dhisnaa oo wadankeena aan joognay dayaca wuu yaraa sababtoo ah qofka gabadha la sheekaysana guriga imaan jiray hadda nin guriga yimido la bartay oo waalidkii arkay oo ciddu yahay la og yahay cidda dhashay la yaqaan meesha ku shaqada la yaqaan soo xusra way adagta oo hal yar labi ahaan jiray laakiin maanta yaabi yaqaan lama yaqaan qol madow waxa soo baxay kuwa aadan ba arag inay nin la sheekaysanayso inay bah la sheekaysanayso qoliyahan online-kii internet-iyo balada laga bartana way ka sii daran tahay runtii waxa laga yaabaa qof maanta kula hadlayo musawir beer ku tusay wayna dhacday in badan maanta inuu hadda ama odayda qoobe ama mid lagu ama nooc kale ay kaaga soo baxdo marka waxaan leeyahay gabdhow guurku waa noloshaadii ha ku ciyaar waanaad ka fikirtaa qofka wax ku darsanaysid waanaad ka fikirtaa qofka aad noloshaada ku aaminayso waxa la arkay maanta dad badan oo qof aysan aqoonso meel oo la galahay maalinka dabacad ku soo dhacay marka dayacin kala yiraahdo dadkiinu ka dhunta cidlo kugu dayacanaya dayaca ka iska ilaaliyo qaybta labaad waxa way daaliye ninkaas wax ma dayaco inta badan laakiin waqtigu dhumiya daaliya la dhahaa uu ku daalinaya gurigu iska dhex fadhiya reerku dhan waa yaqaaniin dadka kama dhuunto waxna ma soo taro waxna ma soo kordhiyo meeshana kama tago waa meesha kama tago waxna kama tare mar hadaa arti marka nin halka iska fadhiyo dadkii kale markay damcaan inay bileen wallahi hebel baa la sheekisanayo dadkii dhan waa ka xayirayaayo waqtigaagana cidlo kulminaya marka ninka daaliye la dhaho dan hadaad gabadhaas in hadaalin adiguna waxaad fiirsaa gabare ninka daalkiisa rafaadkiisa waqti dhimiskiisa inaad ogaatid baa loo baahan yahay haddana maanta xataa waxa jirtaba waqtiga la yiraahdo hebla wada socda years anya sanooyin hatta islaamku ma qabo wax maanta labadan qof intaas oo sano isugu daba soconayaan oo waxyaalaha dhibka badan bakeenay qofka isbarta sanad isbarta marka ugu badan inta hadda run isu sheegtaan qofku wuxuu yaab baran kartaa ama sakaba yarba laakiin waxa loo baahan yahay inuu sandaaliyana kugu noqon diyacana kugu noqon ninka ugu fiican oo la yiraahdo daryeel waxa dhaa qofkii ku keer gareeyo qofka ka naxaya qofka dantaada wada daryeele waxa lagu yaqaan marka hore ku barto magacaaga barto oo cid aad tahay barto wuxuu ku xijaa reerkiin inuu barto
wuxuu ku xijay aan walaalka barto hooyada barto reeraha barto reerka soo salaam guriga igee hooyo igee aabe igee dadka uu soo dhaxgalo familkaagii inkastoo hadda dadka halkan qurbaha jooga ay ceeb u arkaan arintaas laakiin ceeb ma aha waxa la ninkaad abka ugu qaan balafaaga astura qofkan aad wax ku darsanaysid oo noloshaada ku aaminaysid gabarey markii aad maanta reerkiina dadkiina kula og yihiin oo kula yaqaaneen hataa hadduu xumaan kugu sameeyo uu kaaga xishoonayo sababtoo qof dadkiina waa weynaan yaqaan mana xumaan kara qof wax fiican ka araba gurigiina yimid dadkiina bartay waxa weey waa qof raba inuu nolol fiican kula dhiso waa qof raba inuu maxaan ku raad nolol kula abuurto waa qof raba inuu ku soo ogaado hatta asaga ruuxiisa saas oo khayr badan waayo gabar aad cid kula balantayo waxay gurigooda kaga soo tagtay iyo gurigooda wuxuu ahaa iyo reerkooda wuxuu aadan ka warqabin waa wax dadka qaribay laakiin gabadha gurigooda marka aad ugu timaadid hatta dadka say isku yimaadanaanaysa dadkii waayii hore guursan jiray gabdhaha hatta guriga ugu soo dhooman jireen guriga gadaashiisa ku soo dhooman jireen ayagoo raba inay ogaadaan gabadhaas iyo waalidkeed xiriirka ka dhaxeeyo noloshan hadda maanta wax walba la haysto oo waxba iska fuudaan lama haysan jirin gabadha xoolay raaci jirtay qoryo soo guri jirtay arabay soo aroorin jirtay waxay ahayd gabar maanta saakis oo baxdo galab soo imaanaysa xoolaha markay gabadhaasi keento isla markii haday gabar fiican tahay waxay timaadaa ayadoo miro iyo waxyaalihii baadiyaha ka baxay oo kala nooca ilmahooda u wada ama haday magaalo joogto ayadoo nacnac iyo buskud iyo waxyaalo yar xalwo iyo u soo gaday ilmahooda ilmuhu ku soo kala yaacaan Allah baayaa soo socotaa dhaha waa gabadha fiican oo ilmihii jecelin oo reerkooda jecelin oo wanaagsan midda kalena mar alla markay soo gashaa kala dhuumanaya kaasa habartu dhinaayay dilna ka carbe qabtaay marka waxa weeye hatta ninka raftiisa guriga imaashihiisa danta ugu jirto waxa weeye gabadhan iyo xiriirka ka dhaxeeya reerkooda iyo xiriirka ka dhaxeeyay hooyadeed wad ogaadanaysa way qof markaad gurigiisa joogtid wax badan oo banaanka uga badanaanaysa marka waxa aan leeyahay ninka la yiraahdo daryeele waa ninkaas wanaagsan gabdhow oo gurigiina reerkiina imaanahay oo dadkiina baranaya oo waxa uu soo sheegay ay ka danta tahay ogaada oo ka wax ku darsado oo maanta dhibka jira iyo dhibaatada dhacday waxa la aqoon iyo qof meel loo raacaan lahayn iyo qof markii uu suuraba ku yeeran hadhow taleefankana ka bedelnahay inuu meel kale ba ka yimid baa laga yaabaa maantana waxaaba dhacayba dad aadan xataa asalkooda aqoonin oo dhibaato badan dadka u keenay marka guurka laga fakaro waa noloshii qofka waa wixii ayaha ku ahaa awlaadaada meeshay bari ku abtirsan lahayd weeye meeshay bari aad lahayd weeye waxaad leeyahay gabdhow ka fakara guurka dhalinyaro dhalay guurka ka fakara insha Allah marka dambana waxaan ku soo xishin doonaa qaybaha ayaguna bal gabdho u kala baxaan maadaama marka aan gabdhii saddexdaas u qaybi wiilashii gabdhaha la sheekaysan saddexdaas u qaybinay insha Allah gabdhahana waan qaybin doonaa ayaguna ruuxoodu ma sharyara marka insha Allah qaybta labaad nagala socda hadii Rabbi yiraahdo Allah arrin ku anfaco jazakumullahu khayr dhageyskiin